Ku soo dhawaada dhammaantiin mar kale casharadaydii taxanaha ahaa ee barashada luuqadda Jarmalka ee ardayda beginnerska ah ama ku cusub ee bilaabaysa barashada luuqadda Jarmalka. Waxaan ku baran doonaa casharkan muxuu yahay datifku. Sidoo kale waxaad ku baran doontaan goorma ayaan isticmaalayaa. Waxaanu ku soo baranay casharadii ugu dambeeyay ee datifka ku saabsanaa possessive pronomenka oo ah magacyaalada lahaanshaha ee sida meinem, deiner, seinem iyo personal pronomen im dative oo ah mir, dir, ihr, uns iyo meerayaasha oo ah ab, von, nach casharkeennii ugu dambeeyay. Haddii aadan weli daawan casharadaas, fadlan dib ugu noqo oo daawo. Luuqadda Jarmalka waxay leedahay 4 xaaladood oo kala duwan. Nominative-ka waynu ka soo hadalnay 1, 2 iyo accusative-ka waynu ka soo hadalnay wax walba oo accusative-ka ku saabsan. 3 iyo dative-ka oo aynu ka hadli doono maanta iyo genitive-ka oo ayna weli ka hadlin. Haddaba, kaas waxaa la isku yidhaahdaa 4 xaaladood aynu soo sheegnay ee accusative-ka, nominative-ka, dative-ka iyo genitive-ka. Haddaba, kaasusku wuxuu muujiyaa ama kaasuska shaqadiisu waxay tahay inuu muujiyo shaqada magac ee jumladda ama jumladdu qaabka u shaqeeyo. Nominative-ka waxaynu u isticmaalaynaa subject. Subjectiguna mar walba waa nominative ama mar walba wuxuu taagan yahay nominative. Tusaale ahaan, ich gehe, anigu waan tegayaa. Yaa tegaya, ich oo aniga ah. Sidaa darteed, nominative-keenu wuxuu noqonayaa ama subjectigeenu ich oo ah aniga. Er bleibt, isagu wuu joogayaa. Yaa joogaya, er oo ah isaga ayaa ah subjectiga er. Sie schläft, iyadu way hurdaa. Yaa hurdaa, iyada oo ah sie ayaa ah subjectiga. Nominative-ka waxaan u isticmaalaynaa sidoo kale markaynu hal qof amba hal shay kaga hadlayno jumladda. Tusaale ahaan, ich bin Mohammed, anigu waxaan ahay Mohammed. Ich iyo Mohammed waa isla mid. Waxaan isticmaalnay 2 jeer nominative-ka. Nominative-ku baan wada isticmaalnay. Das ist ein Auto, kani waa gaari. Waxaan kaga hadalnay jumladeenna hal shay. Das iyo ein Auto waa isku mid. Der Mann heißt Abdi, ninka magaciisu waa Cabdi. Der Mann iyo Cabdi waa isku mid. 2 jeer unbay nominative isticmaalnay. Accusative-ka waxaynu isticmaalaynaa markaynu jumladda 2 qof ama 2 shay kaga hadlayno. Markaynu xaaladda accusative-ka joogno, sidii caadiga ahayd, nominative-ku waa subjectiga mar walba. Qofka labaad ama shayga labaadna wuxuu u taagan yahay accusative. Tusaale ahaan, ich kaufe den Computer, waxaan soo iibsanayaa computer. Ich waxay u taagan tahay nominative ama subject, halka kaufana ay tahay ficilka jumladda. Der Computer waa shayga labaad ee ku jira jumladda, sidaa darteed waxay u taagan tahay accusative. Waxaynu soo sheegnay inaynu accusative-ka isticmaali karno marka aynu ka hadlayno, marka aynu 2 qof ama 2 shay jumladda kaga hadlayno. Sidaa darteed, ich waa qofka koowaad, halka computerna ay tahay shayga labaad oo ah accusative. Sie ist ein Apfel, iyadu waxay cunaysaa tufaax. Waxaynu kaga hadalnay jumladdan sidoo kale 2 shay. Tusaalaha saddexaad, möchte ein neues Handy, wuxuu rabaa isagu taleefan cusub. Haddii aadan weli daawan casharkeenaynu kaga hadlayna accusative-ka iyo wixii ku saabsan accusative-ka oo dhan, fadlan dib u daawo. Haddaba, dative-ka waxaynu isticmaalaynaa markaaynu jumladda kaga hadlayno 3 qof amba 3 shay. Sidii aynu hore u soo sheegnay, dative-ka marka aynu joogno, subjectigu wuxuu ahaanayaa ama uu joogayaa nominative-ka un. Nominative-ka iyo verb-kuba waxay isla noqonayaan booska koowaad, halka qofka labaad wuxuu noqonayaa dative, halka qofka saddexaadna uu noqonayo accusative. Ich kaufe meinem Bruder das Handy, waxaan u soo iibinayaa walaalkay taleefanka. Ich waa nominative-ka jumladda, halka kaufana ay tahay ficilka jumladda. Meinem Bruder
waa qof wuxuu noqonayaa dative, halka das hindina uu yahay shay oo ah accusative. Tusaalaha labaad, du kaufst deine Mutter einen Computer. Waxaad u iibinaysaa hooyada computer. Waa la mid tusaalaha hore. Artikalka uu qaato computerka ayaa ah der, sidaa darteed wixii accusative ah ee der qaata waxay noqdaan den amba einen. Tusaalaha xiga, sie gibt mir den Stift. Waxay isiisay aniga qalinka, ama waxay isiinaysaa aniga qalinka. Nominative-ku waa qofka ama shayga xarakada sameynaya ama wax qabanaya oo ah subjectiga, halka accusative-kuna uu yahay qofka ama shayga xarakada ku dhacayso. Waxaa loo yaqaanaa afjarbalka direct object. Qofka ama shayga si aan toos ahayn uu u saameynayo ficilka ama xarakaduna waxaa loo yaqaanaa indirect object, waana datifka aynu ka hadlayna maanta. Aynu tusaale u soo qaadanno ficilkan given, macnaheedu yahay siin. Haddaba markaad dhisisid jumladaada accusative-ka iyo datifkuba ku jiraan, waxaad ku bilaabaysaa waa kuma qofku wax bixinaya. Waa nominative-kii oo ah aya. Xarakada dhacaysa maxay tahay? Waa gibt oo ah siin, aya gibt. Markaad haddaba labadan haysateed, waxaad u baahan tahay wixii aad bixinaysay eed adigu toos u bixinaysay oo ah direct objectigeeni. Waxaad tiri tusaale ahaan waxaan bixinayaa buugga. Aya gibt das Buch, isagu wuxuu bixinayaa buugga. Waxbaa jumladeena ka maqan weli oo ah datifkeeni. Iminka waxaan haysanaa nominative, waxaan haysanaa ficil, waxaynu haysanaa direct objectigi wixii aynu bixinaynay oo ah accusative. Waxa ka maqan datifkeeni. Qofkaynu siinaynay shayga, yaynu siinaynay shayga, waxaan yaynu siinaynaa. Tusaale ahaan mir oo ah aniga. Jumladeenu waxay isku wada noqonaysaa marka aya gibt mir das Buch. Isagu wuxuu isiinayaa aniga buugga. Tusaalahan kalena wuxuu la mid yahay unkii hore. Ich gebe meine Schwester die Bücher. Waxaan siinayaa walaashay buugaagta. Ich waa qofku wax bixinaya. Wuxuu bixinayaana waxa weeyaan die Bücher, buugaagta. Meine Schwesterna waxa weeyaan qofka wax qaadanaya, qaataha ayaa ah indirect objectigeena oo ah datifka. Tusaalahan kale aynu eegno. Ich gebe dem Mann den Apfel. Waxaan siinayaa ninka tufaax. Qofku wax bixinaya waa adiga oo ah ich. Waxaad bixinaysaana waxa weeyaan waa tufaaxa oo ah den Apfel oo ah direct objectigeena. Qofka wax qaadanayaana waa ninka oo ah dem Mann. Tusaalaha labaad, gibt der Frau das Geld. Wuxuu siinayaa gabadha lacagta. Waa tusaalaha horan buu la mid yahay. Tusaalaha saddexaadna, ich gebe dir einen Stift. Waxaan ku siinayaa qalin. Tusaalaha afraadna wuxuu noqonayaa ich erzähle meinem Kind eine Geschichte. Waxaan uga sheekeynayaa ilmahayga sheeko. Waxaad isticmaali kartaa oo kale datifka marka aad qof xidhiidhinaysid ama qof la xidhiidhaysid. Tusaale ahaan, ich erzähle ihm eine Geschichte. Waxaan u sharaxayaa isaga sheeko. Ich schreibe ihm einen Brief. Waxaan u qorayaa isaga warqad. Ich schenke ihm ein Geschenk. Waxaan u hadiyadeynayaa isaga hadiyad. Waxaa jira ficilo u gooni ah oo qaata datifka. Laga yaabaa inaan video kale kaga soo hadalno ficiladaas. Aynu eegno intooda ugu horreysay ugu muhiimsan. Helfen, caawin. Ich helfe dir. Waan ku caawinayaa. Vertrauen, aaminaad. Ich vertraue dir. Waan ku aaminayaa. Danken, mahad celid. Ich danke dir. Waan kuu mahad celinayaa. Gehören, lahaanshiyo. Ich gehöre dir. Adaa iska leh. Mar kale ayaynu ka hadli doonaa ficiladan oo dhammaystiran. Haddaba wixii masculine ah ee lab ah ee nin ah ee qaata artikalka der, datifka wuxuu noqonayaa dem. Der man, ninka. Dem man ayuu noqonayaa datifka. Wixii dhadig ah ee gabadh ahna
ee markii hore ahaa die Frau gabadha, marka datifka la joogo wuxuu noqonayaa der Frau. Wixii Neutroom ah ee das Kind ahaa markii horena wuxuu noqonayaa dem Kind datifka. Wixii plural ahaa ee markii hore nominativeka die Kind ahaana wixii jamac ah wuxuu noqonayaa datifka den Kindern. Unbestimmte artikelkana waa la mid einem iyo einer unbay isku bedelaysaa der Frau, einer Frau. Danke, mahadsanid. Waad ku mahadsan tahay intaad dhegaysatay ee aad i daawatay. Waan rajaynayaa inaad dhammaantiin wax badan ka wada fahanteen casharka. Haddaad casharka ka heshay, fadlan sheer garee oo la wadaaga asxaabtaada jecel in ay iyaguna bartaan luuqadda Jarmalka. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe garee si aad ula socotid casharro kale oo fara badan.